السلام عليكم أخيار تشرفت لك كسو دوادا عشرين امتحانا ee suuqa sarifka lacagaha forex trading asxaabi waa bilaabaynaa casharka la socod wanaagsan casharkan waxay uga hadlaynaa lacagaha isku jihada ah iyo lacagaha kala jihada ah ee iskhilaafa understanding currency correlation waa inaad fahanto currency correlation wuxuu yahay qayb aad u muhiima weeye casharkaani fadlan warqad ayaan kaaga sameeyey casharkan linkiga hoostiisa taala printer dheh derbiga kaa soo horjeeda ku dhegso si aan markii aad trade garaynaysid mataqaanaa trade-kaaga ugu darsatid lacagaha isku jihada iyo lacagaha kala jihada si aad u fahanto oo markaas ay xirfad kugu noqoto trade-kaaga ku caawisa halkaa markay marayso ku darso currency pairs that move together waa lacagaha mataqaanaa waxa la yiraahdo isku jihada aada iyo currency pairs that don't move together lacagaha aan isku jihada aadin ayay noqonayaan soo maaha halkan marka waxa inoo ah waxa la yiraahdo videoga inaan soo gaabiyaan rabaa una dheeraan halkan waxa inoo yaala lacagaha isku jihada ah buy laga wada raadsado ama sell oo maxaa kamid ah waxa kamid ah AUD USD hadii ay buy u socoto NZD USD na buy bay aadaysaa hadii ay sell u socotana sell ayay aadaysaa AUD JPY hadii ay sell u socoto tan kalena jihadii u socoto ayay aadaysaa NZD JPY hadii ay AUD CHF ay u socoto jiha un dhankay doonto ha u socoto NZD CHF na jihadii u socoto ayay ku waafaqaysaa euro AUD hadii jiha un u socoto buy ama sell midkay doonto euro NZD na iyada ayay raacaysaa markasta way israacayaan tani hadii u socoto waxa la yiraahdo jiha un buy ama sell ah tan kalena kama harto oo waxa leedahay waan ku daba joogaa jihadii aad ayay la aadaysaa kuwaasi waa lacagaha waxa la yiraahdo shanta beer ee suraaca mataqaanaa jiha hal jiho wada aada oo hal dhinac buy aad ka wada raadsanaysid yani waxa laga yaabaa hadii aadan aqoon in qaybto sell ugu jirto qaybna buy ugu jirto taasina adiga ayay qalad kugu keenaysaa okay hadii aynu marka halkan kore fiirino waxaynu arkaynaa halkan waxaynu ku aragnaa lacagaha kala jihada ah oo mid hadii uu buy aado kan kale sell laga raadsado yani ereygaas faham hadii ay DXY ay buy ama sell mid un aado euro USD waxay leedahay kuma raacayo anigu jihada aadina ma aadaye jihada kale ayaan ka baxaya waxa kamid ah lacagaha sidaas DXY ku sameeynaya AUD USD DXY jihada ka baxday mooyee jihada kale ayay ka baxaysaa oo DXY hadii ay sell u socoto AUD USD iyo euro USD iyo buy ayaad ka raadsanaysaa lacagahan oo dhan buy ayaad ka raadsanaysaa markii DXY ay sell u socoto hadii ay buy u socotana sell ayaad ka raadsanaysaa okay shidaalku sidoo kale sell ayaad ka raadsanaysaa hadii DXY ay buy u socoto yani sell iyo buy ay ku kala wareerin kaliya fahan DXY meesha ka baxdo mooy dhinaca kale ka baxayaan hadii albaabka guriga dhinaca dambe ka baxdo iyagoo albaabka dambe ayay ka baxayaan oo cagsi ayay isku yihiin okay yani isku wax ayay sameynayaan oo markii aad shaxanka tagto suuqa ayaan tagay oo ku tusaya isku wax ayay sameynayaan laakiin waxay u sameynayaan si bil cagsi ah oo iska soo horjeeda ka gudub qodobka labaad lacagtan euro iyo GBP hadii ay jiha un aado lacagtan kale ee GBP CHF jihadaas way ku khilaafaysaa oo jihada kale ay yaadaysaa tusaalahan waxa taxliilisay euro GBP marka taxliilisay waxay la mid tahay GBP CHF na inaad taxliilisay oo cagsigeeda ayaad u galaysaa euro GBP sell ayaan ugu jiraa GBP CHF na buy ayaan u galayaa cagsiga kale ayaan u galayaa kuwan kalena waa cagsiga AUD USD waxa cagsigeeda ah euro AUD NZD USD waxa cagsigeeda ah oo dhankay ka baxda mooy dhanka kale aadaysa euro NZD USD card cagsigeeda waxa ah US oil intaas ina fahamtay aad ay muhiim u tahay sawirkan isagoo sida u diyaarsan ee warqad PDF ah ay video hoostiisa yaala fadlan la deg printer garayso derbiga ku dhagso okay marka asxaabi hadda waxaynu aadaynaa suuqa si aan aan ku soo sharxay wax kaaga tuso hadda waxaynu joognaa suuqa Soomaa halkaas aynu lacag gelinaynaa si aan marka ku tusiyo wax aan sameynayo tusaale ahaan
hadda halkan waxaan soo dhigtay lacagahan ayaan halkan soo dhigtay soo ma waxaan rabaa inaan ku tuso AUD USD AUD USD halkaas sare ayaan gelinayaa u fiirso halkaas sare ayaan gelinayaa waan geliyay soo ma marka aan sidaa u geliyo waxaan ayaa naga tirtirayaa markaan sidaan u geliyo waxaa arkaysaa lacagtaasi jaha ahaan waxay u socotaa buy markii trend line-ka la saaro trend line waxa rabaa inaan ku tuso si aadan hadhow ugu qaldan waa inaan trend line ku saaraa si aan ku tuso jahada u socoto trend line-ka haddii aadan aqoon 10 ayaan uga hadlay 10 kale oo soo socdana waan kugu sii faahfaahin doonaa ee waxa la yiraahdo in uga hadli doono market structure okay trend line ayaa hadda inoo saaran suuqaas wuxuu inoo sheegay inuu buy u socdo suuqaas inuu buy u socdo ayuu inoo sheegayaa soo ma lacag cagsi ku ah marka aan fiirino lacagtii waxaan leeyahay jahada ku raacaysay kuwaan waa lacagii jahada isku raacayay lacagta jahadeeda ee aado ku raacaysa oo waxay leedahay kaama haro meesha aado ayaan kula aadayaa waa NZD USD marka NZD USD halkaas ayaan soo dhiganaynaa NZD USD si aynan u ilaawin NZD USD si aadan u ilaawin halkaas soo dhigo markii halkaas soo dhigato maxaa sameynaysaa ma waxa sameynaysaa NZD USD inaad inta halkan tagto ku qorto oo iyadana kanaliskeeda mar soo geliso ay eegto maya waxa jira indicator ku tusinaya iyagoo mataqaana indicator ahaan ayaad u soo gashanaysaa aan ku tuso hadaba fallaar ayaan ku jiidayaa qaab indicator-ka camal ayaad u soo gashanaysaa meeshan ayaa furaysaa ay plus-ku ku sawiran tahay ay ku qoran tahay compare meeshaas ayaad open leedahay adoo wax kala samayn kadibna adigoo aan iswaalin ayaa waxa ku qoranaysaa magacii NZD USD NZD USD ayaad ku qoranaysaa adoo wax kala samayn tig ayaa siinaysaa iyadoo line ahaan ayuu ku soo gelayaa soo ma iyadoo line ah ay ku soo gashay soo ma aan ku tuso xayir kaadi u fiirso halkaas yani kor ayuu u socotay lacagtaani waa trend line-ku kor ayuu u saarnaa iyadana magacan halkaan iga soo dhig san iyada igu saar farta waa yareeyn kartaa haddii aad rabto maxaa marka magacan aan ugu qorayaa waxaan ugu qorayaa halkaan lacaga ma soo gashan kartide lacaga kale ayaa ku soo darsan kartaa oo ilaa 3-4 lacagood ayaa safi kartaa halkaas oo waxa la yiraahdo aad fiirin kartaa marka tan xataa kanaliska line ayaad u bedeli kartaa oo lines ayaad ka dhigaysaa colorka waa bedeli kartaa tan colorkeeda tig ayaa siinaysaa waxa la yiraahdo boxki ayaa ku soo baxaya toolka haayo mataqaana waxa la yiraahdo laga bedelay colorka boxkaas colorka doonto hada pinki oo kale nooga dhig colorka ayaa dooratay soo ma colorka purple-ka ayaa dooratay soo ma okay isku jaha ay u socdaan tani waxa ay samayso ama farta ay qorto ay qoraysaa salahan halkaan waxay ka samaysay u fiirso waa isdhex gelin kartaa isku wax ay qorayaan halkaas waxay samayso ay la samaynaysaa daa soo dhaweyso waa la mid hadda tan kale nalis ka dhigto tan hadda kan nalis ka dhigto tan kanalkeeda loogu celi okay isku wax inay qorayaan waa fahamtay labadan lacagood oo hal jiho ayaad wada gelaysaa waxa la yiraahdo colorkana waa bedelan kartaa halkaas ayaana uga soo darsanaysaa aan ku tuso marka waxa la yiraahdo lacagaha kala jihada ah aan ku tuso video dheeraada ma rabo waxaan rabaa inaan soo gaabiyo halkaan waxaynu qaadanaynaa DXY ayaynu qaadanaynaa kadibna halkaas ayaan gelinaynaa DXY tan marka iska qarinaysa tig ayaa siinaysaa hide ayaa leedahay sidaas ay kaaga qarsoontay halkaas ayaynu wax soo gashanaynaa DXY way noogu jirtaa lacag doorka index okay DXY soo maaha DXY waxa la yiraahdo ka soo horjeedkeeda ayaynu fiirinaynaa lacagta aynu gelinayno
dxy trend line ayaa inoo saaran waxayna u socotaa down ayay u socotaa waxaynu aragnaa inay hoos u socoto lacagta kasoo horjeeda ee dxy lacagaha kasoo horjeedka ayaan fiirinaynaa lacagta kasoo horjeeda aynu fiirinayno waa euro USD adigoo aan iswaalin ayaa soo qaadanaysaa kadibna waxaa soo qaadanaysaa call outka halkaas ayaa tigtig siinaysaa kadibna paste way ku taallaa iyadoo magac ahaana okay euro USD marka halkan kama raadinaysid meeshii ayaa tegaysaa soo furaysaa markaa soo furto halkaas ayaa ku qoranaysaa euro USD ayaa furaysaa euro USD sidaan ayay kugu soo baxaysaa kadibna iyadoo line ahaana ayay kugu soo galaysaa okay magaca ayaad qaadaysaa waa ku dhijinaysaa kalarka waa ka bedeli kartaa ilaa lacaga kalena waa soo gelin kartaa oo laynaysaa halka marka maxaan ka tusayaa waxaan ka tusayaa u fiirso haddii aan tana line ka dhigo si ay u fahanto inay isku wax sameynayaan u fiirso isku wax ayay sameynayaan halkan head and shoulder ayay ka samaysay u fiirso halkan tan waxay ka samaysay head and shoulder waxaan halkaas ayuu ka bilowday head and shoulder kaas ayuu ka bilowday sare head and shoulder ayay ka samaysay kadibna laba tiir oo saas ayay samaysay tiir saas iyo tiir saasa tanna hoos ayay ka samaysay yani waa marka hadaayo ku lahaa isku wax ayay sameeyaan laakiin waxay isku yihiin bilcagsi dhinaca kale oo foora ayay u samaysay tana xagga kale ayay taasi waxay hoos u soo samayso tani kor ayay u samaynaysaa oo isku wax ayay samaynayaan laakiin u fiirso halkan tiirkan tani maxay u samaysay kor ahaan ayay u samaysay kor ayay u samaysay sooma tanna maxay u samaysay hoos ahaan oo waxay leedahay jihada aad ka baxdo waxa samayso waa samaynaya laakiin jihada aad ku samayso anu ma aadayay jihada kale ayaan aadaya oo jihada ayay isku khilaafsan yihiin laakiin isku far ayay qoraan inay intaa fahantay aad ayay muhiim u tahay marka tan kan dhalis hadda noogu soo celi waxaan kuu sheegay inaad kalarka bedeli kartid waxaan kuu sheegay inaad iska qarin kartid kalarkaad doonto inaad ka dhigi kartid inaad farta xoogaa waaweynayn kartid lineska oo aad waxa la yiraahdo aad wax taqaanaa waxa la yiraahdo lineska halkaan line waaweyn ka dooran kartid farta inaad dooran kartid yani waxaad doonto ayaa ku samaynaysaa halkaasna waa uga soo darsanaysaa lacagaha kale anigu ma doonayo inaan halkaan tijaabiyo oo waqti iga dhumo sababtoo ah waxa la yiraahdo kulli waa isku mid sida aan labadan kuugu sheegay ayay inta aan ku soo qoray samaynayaan adiga tijaabi sidaana ku samay warqadana la deg casharadana xifti koorsadana waxaynu ka haray casharo kale oo badan oo way socotaa wayna inoo socon doontaa sida ugu dhaqsiya badan oo ku soo dhameystiri doonaa haddii Allah awood leeyno wixii fikirkaaga fadlan groupka noogu soo qor macallimiinta groupka ku jirta ardayda caawisana aad ayaan u mahadcelinayaa casharo suma waxa la yiraahdo ay macallimiinta qayb soo geli doonaan ayaa jiri doona oo waxa la yiraahdo ay ardayda ku imtixaami doonaan waxay ku imtixaami doonaan ardaygu waxa la yiraahdo wixii uu soo bartay inuu lala practice gareeyo laga fiiriyo laga tijaabiyo maxaa ka qaldan waxaan u maleynayaa inay isfahanay tan iyo intaan ku kulmayna casharkan cashar la mid ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo